maxaa loo oriyay wixii isma qabanaysa isma qabanayso ninkii ku dilay haddaan u shaqeynay nabu dileen waxaan garanayaa xamar oo dhexdeedana lagu qariyo oo aanu ku jiro underground baan garanaya aniga hataa ku jiro ayaan garanaya inta guryahaygiina laga kaxeeyey intuu waan dilaya marka halkaasi isma waafaqayso waxaan leeyahay halka uu mugdigu ka ibanaya dii sheegaya uu idaaja isticmaalay uu baan doonaya caawa uu hadal kale taariikhda ka geli maayo halka eragaasaa doonayaan mugdiga ka saa intaasoo keliya ayaa doonaya mugdiga ka saaro aniga oo hambalyeynaya ibraahim ku hambalyeynaya hawsha uu qabtay oo isku daya inuu maaha markii wixii ugu horeysay uu qorayna maaha anigu suuga wax uu qoray oo hore anigu ardaydaan ugu dhigay hargeysa ugu dhigay noocaasina in la dhiirigeliyo oo dhalinyarada ay kaas ee dadaalaysa ee wax qoraysa waxaan anigu ka wada codsanayaa in la dhiirigelinta waxa ugu horeeya waa buugaagta horta iibsada oo dahalka oo qofku buugaag kale ha soo saari kara ha soo saari karo wax ku qoro ha helo oo ayaa ka mid ah marka adiga horta hanbalyaa ku leeyahay waxaase kelmadu ka leeyahay halkaa yare dee wax nagaga soo durkeen ayuu baan leeyahay dee ilaa halkaa kelmad ka ilaahdo ayuu baan doona ka ilaahdo waa horta waxaa silsiladda waxaa ka horreysay silsilad ka horreysay oo maruuriyo loola jiray wax berigii uu tageen nimanka SSDF ta loola jiray berigii ay baxeen ee ay Itoobiya tageen ee inqilaabkii kadib ee ay Itoobiya tageen ayaa nin gabayaa ahaa oo imika dhintay oo jabhada ka tirsanaa SSDF ka tirsanaa oo khaliif loola jiray ilaahay naxariista ayaa soo gabiyay anu waxaan sidii gab waa laga gardaraa sida gabagiisa loo turjitay wuxuu sidii Soomaali guubaabi buu sidii oo kaca markaasuu wadadu maray baa laga yaabaa xagga taagtigu inay wadadu ka qaldantay laakiinse waan bartay anigu markii dambe dee jawaab baa waa bartay niyad sabadiisii baa ayaa lagu walqubaa inuu istahaadadka guubaabi uu dadkii buu qabaayil ula hadlay hawiyahooma maxoog baa culaysaan idool buftuu jaalaha waa majnuu falan dhulbaanta uu sidag yeela balaayo waxbuu qabaayilkii buu mid walba bacay uu isagoo leh meesha ka kaca waan meesha ka kaco kale dagaalaba ha ayuu gabayga wadadaas ula maray laakiinse loo marka waxa mashkiladu ahay anu ninkaasi inuu dadka guubaabinayay oo uu lahaa kaalaya dagaalka ka qayb gala ayaa lagu haystaa laakiin markiiba waa la wajahay uu qabaylkii buu caay nin dhirbaaxajin la yiraahdo oo magaca Isaaqa ku hadlaya oo kiiriya markaa jooga ayaa markiiba isku qaaday haddaan Isaaqa dhaay baabay goblen ma anagu ma jarteen xubinahay kolkaasuu isku qaaday kolkaasaa lagu shajar buu la hadlay oo caayo markaasuu ma jarteenkii caaya markaasuu balay waxaa furantay silsilad la baxday miinley oo la isqabiil caayayo oo qabiilba qabiil wixii qabiilad bay hoos ba u dhacday mustawii bay ka hoosaysaa qabiilba qabiil kala caayo ma jarteenkii la caayayo la xamxaara raacdeen oo hadii kule hawiyii ku qaadayaan oo Isaaqi ku qaad waxaasay ka bilaabay aniga yahay taawi nikale waxa raay warsame ayaa maalmaha kamid oo silsiladaas xoog tahay oo socoto ayaa kaasa balbalaare meesha lagu yiraahdo niman Isaaqi loogu yeeray oo dhalinyaray isbaxaasa socoto markaa مين اللي جالس أسقطه؟ أو بتشوفك يصير لو قال صوبي دال بقال ويه يصير لو قال صوبي دال بقال وخاص أسقطه خل كاساوي تهدى قيلسية بوحي هذين والوحي ليسان ده ما أنت اللي منك يهديله يساق الحي والقضية يساق ويصير بالشيء جيد وحصول بالشيء جيد حلاقنا ما هو حين الجودي إلى تاريخ ما لقى الله يعني هذا هديله يساق الحي إلى بيتي ستهاي ما تيجي كأوقف نار ده رجال لون إلى سنة برك باللونه ده واحد بتشتري يا أحباب بيلها كهالله أمروني إلى يدوب بالدوبة ده لا سوق البحر نيوكلير كيدي لا سوق بحر وحي كوسي ده باش وحلوك على تريانو خلوك على تريانو ده واحد غير هذا بيجي البش
waxay ujaadahaya ayay yiraahdeen guwaaba ay ka soo dadku daqiiqna marka haysa oo dadku ila kolbaan kolkaas waxaan ku leeyahay wali waxaasda waxa hataa uu jawaabo wuxuu yiri waanu ka jawaabaynaa laakiin sidee mooyaan saa jacaysan doontaa lagu jawaabaynaa aniga waanu ka jawaabi doonaa wal waanu ka hadli doonaa aniga hataa uu habeennimadii markaa uu meeshii ka soo kacay waxa noocaada ahaan jirtay dib u eegis wax la yiraahdo hataa uu baan hadduu koola kasta aan ku soo qaylo magaalada laba laabood baan isuleeyba jiray gurigiisa oo dib u eegisadii wixii baasa soo aalday sala waraysan dib u eegis yar ayaa u deesay jiray dib u eegistii baan hataa weeydi waa xogaa dib u eegisa waxaan u aragay marka maxaan u aragnay cajaladahaasi xafiiska maxamed waxa lagu badiyaa xafiiska dawladda lagu badiyaa nabad sugidda ayaa badisa cajaladaha qabyaalada ah oo waxa la doonayaa dadka in lagu dilo majeerteeka oo la yiraahdo nimanka gabayga waxa ku badnaa markii xaalada raacay nimanka waxaas in dadku qabaa'il isu qabsado waxay dali ugu jirtay taliska oo dadkii isaga ka hor iman lahaayeen u midoobi lahaa inay iyagu isqabsadaan oo ay qabaa'il isu qabsadaan oo iyagu fooda ayaa dali ugu jirtay waxaan garanayaa cajaladaha si dawladda waxay ku bixin jirtay qarashka ay ku bixisay balin xafiisyada bahalaha cajaladaha badiyo oo dhammi mashquul bay hal yahabeen ahaan jireen dawladda sugidda lacagta bixin jirtay waxaan nidhi cajaladaha dawladdu fidinayso ee qabyaalada ah ee dadka la isku dirayo inagu waa inaynu samayno waxaynu kaga hortagno maanta maxamed siyaad baradami buu inoo galo gabiye qabyaaladeed buu fidan isaga fidanay gabiye qabyaaladeed heer qaran intaanu istaagnay baa leeyahay dulmiga adiga wada ee dadka ka daaynu lahno heer qaranna aynu istaagno si cajaladahan ay u baaba'aan dadka isku diraya oo ay u soo baxdo silsilad kale oo dadka midaysa oo taliska ka horgeysa asaasaan habeenka ku heshiin waxaan ku heshiinay aduu soo bilayo kiino soo bilaabaa kale ayaanu ku sidaas oo habeenka ahad ku wada galay waxaanu markaa joognaa waxaanu October iyo waxaanan kala hubin inay September tahay oo sanadkii 79 ayaan fuqnaa annagoo sidaas ayaa waxa noo yeeray galab galbaha kamid ah ayaa ootooyinkii maxamed siyaad ilaahay xadiis la hasiiyay ootooyinkii maxamed siyaad oo ordayaan soo galay aniga taa meel iska fadhila waxaan leeyahay waxay doonaya madaxweynaha bay doonaya waa galab oo asar meel yar baa gudaariyo meel yar baa yaro miiro ku culayda oo wala la soo kaxay waxaan nibi xafiiskii madaxtooyada ayaa halka fil Soomaaliya halkii baa soo fadhiisanay waxa isla loo yeelay idaaja iyo yamyam iyo Yuusuf Xaaji Aadan Alba ninka ka saaray wuu qaldanay Yuusuf Xaaji Aadan wuu ku jiray Yuusuf Xaaji Aadan wuu ku jiray shanteedaas isuu qaayeen shanteedaas ayuu Yuusuf Xaaji Aadan shantaas waa ugu nimi Yuusuf ma qayli jirno isagoo sii fadhiya idaaja iyo meel baa la keenay taa uu meel baa laga keenay waxaanu soo galay qol weyn oo madaxweynuhu fadhiyo oo halkiisa dambe imika waxa cagaaranay ku yaalo oo kale waxa cagaaranay oo sawirkiisii hoo weyn ku yaalo ayaanu soo galay odaga sawirkiisii oo weyn ayaa ku yaala oo gidaarka oo dhara ayaa ku yaala sawirka aaro falaad baafkiisa ka soo baxaysa madaxweynaha falaad baafkiisa ka soo baxaysa halka koolaha waxa ku sawiran dad yaa baalo yaraya gaariyo bido fadhiyo xubo halka soo kala fadhiyo falaadaas afka madaxweynaha ka soo baxaysa dhegtay doo gelisa dhegtooda waxa halka ku taala abwaaladii waa dhegti falaadii afweynaha laga madaxweynaha soo galaysa balagta kolkaas annaga afkayagii falaada ka soo falaada waa sawir falaada ka soo baxayo dad iyo baaco dumar yar loo halka fadhiya ayaa warkayagii naga wada galay sawir ay kaasa oo triangle-ka saddex geesoodkaasa oo dee fariinta oo dhan ku sheegay wixina lagu yaray ku sheegay sawirkaasu waxa la yiraahdaa sawir kaliya ku kalmadood ilaa macallin baa sawir kaliya macallaya
sawirkaa kolkaanu aragnay odagu wuxuu nagu yeelay dee waanu fahamnay waa bal waxbaa idii sheegaya dadka wuxuu sheegay ayaanu dee u fahamnay kolkaasaa wuxuu leeyahay waa 79kii baynu joognaa aakhirkiisii waxaa soo socda sanadkii 80ka la odhan jiray qolooyinkiina dee gabgaboobay intiina ku wareera waa ku waree sanadkii laba kaclayta weeye waa sanadkii odhan jiray isku filaashaynu gaadhayna waa sanadkii uu yidhi askartii baan dib u soo celinayaa laba kaclayta oo kacaankii baan dib u saxaya ayuu markaa leeyo kacaankii baa leexday ayuu leeyo inqilaab waa markii dagaalkii Itoobiya ku soo jabayo inqilaabkii baa dhacayoo qabyaaladii baa bilaabantayoo taladu way xun tahay oo nimankii bajartay baa beerihii laga aasayaa baraagihii kolkaa baraagihii laga aasayaa oo dumarkii iyo carruurtii baa ayuu war ka daayasaan waxayna ka daayay oo wixii baa hoos u daadegay oo fool xulma kaablay markaas wuxuu leeyahay waxaan kacaankii baa saxayaayoo waxaan ku saxayaa inaan halkiisii ku soo celiyo oo askartii baa dib ugu yeedhaya golihii dhac wixii baan baabiinayaa jiray oo dhan marka saasuu lugin saasaan idinku yeelay aniga oo doonaya sanadka 80ka inaan laba kaclay sameeyo ayaan idinku yeelay waxaan dadka bulshada oo dhan baan u yeedhayay macallimiinta waan u yeedhay wadaadada waan u yeedhay aqoon-yahanada waan u yeedhay dumarka waan u yeedhay maanta abwaanadii baan idinko intiina ka soo xushay kacaankii aan dhaliyey wuu leexday buu leeyahay markaa kacaankii wuu leexday qabyaalad babanaaya bilaabantay waxa dagaal baa galay marka dagaalka uu galaya waxa weeye askartan uu dib ugu yeeri doono iyo laba kaclayntan iyo waxaas markaa dee usii gogol xaalinaya ma ila galeen oo dagaalka maxaad ku galaysaa qabyaalad baa la dagaalamaya waa ku jiray dagaalka qabyaaladda waa ku kula jiraa baa dagaalka qabyaaladda waa ku jiraa waanu ka soo baxnay waxaa baanu haddana dib u eegista isugu dhigay إلى ديبو إجست لقى باربا يوسف حاجة إلى كل حريص يوسف أيام ديبو إجست يا فريسة وحاولوا لي ورياه تشارلز بايد صومري تشارلز بايد صومري تشارلز كيلو صومري وحوي واتي أيلو دبل البيري لو يالي إسقي بعد دبي صوق قال هو يدي قبيلة دينا تقالبا وحدوه ولا هذا وحوله وات هذا دستي هذا قال ترى أيه الأورد دولار أو أيلو ما تقول له ده نقصه أيلو باشي oo waxaynu qoraynaa sabab baynu u helay arrinkii waa tii debra maala dooyatay waa taa tiri qabiilada la dagaalamo digteeday dadka u sheega halka wax laga watalaya waa halka anagu filimka betelay dib lagu soo betelayaan filimka laga soo betelay oo deelay waxa ilaa ninka ninku deel libax buuha إلى أن حيث الله سيء نداء لقوم بدأ عيب هاي ها دوها وخلاص باي ده واحد يقول قبطال سبايست دبل سيدي بارو دبل لبا الدليل يقول رئيسه كستمايل إذا جاي ببارو خير إذا جاي بابا ده حق صلي ها أيوه دبل وما ويكسو شوابه وركيجي روي قادر وحيد هذين nimankii wixii loo diray nimankii wixii ay u diray marka aanu deeray qorshe kala wateelo qorshahoodii jabay aanu warwayo nimankii noqon waaye bahashiiba hadaad maxamed siyaad barata dhakada ka saaray wuxuu noo soo diray ilaahayna xariisana ha siiye ninkii loo jeeday Axmed Aadan Sheekh oo markaa ah wasiirka warfaafinta ni aqli badanna aha imka hargeysu ka dhisaya عصبتال بقي عيسى القول لسيو أحمد هذا الشيخ أو عرور تابع لقى لسيو يقول يسقو كدر دار من هالجيس لقى لسه عصبتال كواحد يا أحمد هذا الشيخ بالينا أو هالجيس لقى محمد هذا الشيخ بالينا هالجيس نيك دخترك ها إسا كدر دار بي مركا وحال لو بحي محمد هذا الشيخ باللو بحي عصبتال فيه ها نين بس كحب أبوها نيك أسا لو ياري ودي عشرة سوقاتي وينواتي يدري ده محاور هيسان وحيبان كسيتين إذا جاي بيبلي تودي بكورة وحاول بسكايب عشان الصيع محمد بايري إتو يا ولا إتو بلا حير حول لا أقول عريسه تو واحد بلا وحده وده يسكون قيدين معها ها كل كاسة هتاوي بقى وحكودي وان يسكون قيدو خصوصا دو لو يروح لقبيلات هلا تكلموا qabyaaladda hal la dagaalamo
annaguna tooch baanu qaadanay toojkii aanu qaadanay qabyaaladan dee bal halkay marayso aynu qabyaaladaanu sibuu dee raadiya halkay dee ka soo baxday halkay dee ku socoto raadiya sidaanu toojkii u daba soconay filan Soomaaliya la gashay iyada la gashay baasho halkaas iyada baasho halkaas la gashay hota silsiladu sida ku bilaabantay hadalkaydu ku badin maayo waqtigii baa dhowey saasay ku bilaabato waxaan doonaya inaan saxo dee Soomaalida inay isku barato way istaqaalayeen halgankayga iyo taariikhdeeduna way sheegaysaa damiyaadu leegleelin $10 inta la siiyey yani dabeed waa tii dabeed kagaba qayb galay dabeedna halgankii hubaystaana kaga qayb galay saasay ku bilaabato markaa sheekada waxaa la isku qaldayaa annagu sababtan aan u samaynay maasadayada ayaa idaa jaamalaha ka dhiganaya dee madaxweynaha diray ayuu sabab ka dhiganaya oo annaga ama footaana ka dhiganayay kolkaa laakiinse sida idaa jaana og yahay hadduu caawa halkan iga maqlayo dee waa taas ila whatsapp hashari sheegaysa inshallah hadduu i maqlay sidaasay ahayd dee waa filim qireen uu matale aniga igu mataline dee saamaxnaakum waaya saamaxnaakum وأنا بحوي صاحب ماي وأنت هسكت فلان كده تاريخه بالويا صحلول يا لهم بينو يا واي يا رجال إنت كيلو صوري وحو صقاري صوت بيالي سديد البش الحليب هي سديد بيالي الحليب بسم الله الرحمن الرحيم كل برنامج كين وحمرية ميل بحو مرية أما جبجبو مرية مبتدي أما وحي رسمي هاي نقول الله وحو أها داحفورك بوغان غرفاynta silsiladii deelay ee uu qoray Ibrahim Yusuf Ahmed Hawd oo marti inoo ah oo inooga yimi dalka Sweden magaalada Göteborg degan isla caawara noqon doona inuu ku sharfo inay noqoto goobtii ugu horeysay ee uu buuga ku daahfuray inay Oslo nasiib u yeelatay taas waa qodobka labaadina waxa weeye iyaduna nasiibka labaadihi silsiladan uu gorfeeyay uu bugaagteedii cilmi baarista ka sameeyay odaygii bilaabay isaguna inuu joogo goobtii oo aad isagana nasiib u yeelateen hadda artiin reer Oslo iyaduna waa mid labaad marka labadaasba waa mahad Ilaahay waxa Ilaahay ina wada siiyo weeyaan waxaan idinku gubaabinayaa تعبك مركز الله سميه وقفك ولو أبال كذا سي وميت كلا أصيب بلاغو هل كان بوجاك بيالا بوجاك تو وبقوليو كنتن كرانوي قف ولي بوا أودي كريا ولا بقدو قف بحيه وي أو قدو يمكننا هنا إبستان سي بيرجلنا يقول نقطه ومدح أصيب معلو ووح أنت كبدر أو هشان وحن كلو يدوك بشارين إياه إبراهيم wuxuu qoray buug kan ka horeeyay oo yaraaday oo baahi badan loo qabo oo la yiraahdo aanadii nageeyay dib uu soo daabacaya haddii daabacadiisu ay soo baxday ugu horeysaana wayna soo gaari doonaa cidii baahi u qabtay iyadana way heli doontaa marka taan waan idinku bishaareynaya waxaan hadaba ku soo koobaya hadalkayga wixii su'aal ah ee ama Ibrahim oo buugan qoray halkan ka weydiinaysaan ama gaariye ama faalla kala ba ah way idin furan yihiin waanan idin kala baxaya عبد الرزاق إبراهيم هذه قاعدة فوق هذا ولا أنا هذه واحد ونحسن أو ونحسن على النوضة وأيوة فن كانوا مرنا وحنا يعني وهي تج كانوا هذا حرف كانوا مرة وحلو بعدين يعني يفوجر كمان أو كاي يعني سنون نقول ما أنا نقول أيوة حتى العلم حب كان مثل لسه تيجي على ساعة تيجي أدمرنا فاتس كذا سي مرنا أدلس نسكس وصارتي تواتكم عن سنوان كوب بقادين واضح سيدنا نوغوت بوق واضح ما هذا سيدنا نوغوت هدي لا إله وحولي بقى آليات المهم وحنا بتجعل
jeclaystay arrintaa inaad soo saartay yacnihii burburka deeley iyo maansooyinka la midka ah ay ku lahaayeen darajabkii soomaalida yacnihii nin aad iyo aad gees u abaata caddayn karaya waxaa aad iyo aad taariikhdana marka dadku wax qorayeenah nin waliba siduu jecel yahay dee haddaanu ammaana jirin haddaan ammaana jirin isagu sidii uu ila bilowgaba waanu iskhilaafsanay isagu taliska maxamed siyaad barre oo markaa joogay inaanu reform ku samayno reform la hagaajiyo la dhabdhabo ayuu ahaa annaguna waxaanu dhahay meesha maaha laga qaado talis shaqaynaya maaha marka labada meelood kala duulanay baa marka wax kasta oo la soo qaadayba si baan u fahmay isagu wuxuu u arkayay in talisku oo wanaag doonaya la dilay oo anagu aanu bari furay taliska oo wanaag doonaya oo islaax doonaya oo reform u diyaaray isagu reformist buu anaguna revolutionaries baan ahay farqigu halkaas ku jira marka niman waashay oo dagii wax loo galo oo wixii la saxan la doonayo waashay oo fadqaan la geysanayay buu laga dhigay taana waxaan u arkaynay arrinka aad arkaysa kama soo jeedaan baanu lahay marka ismaandhaafku halkaas uu madmadowga halkaas ka bilaabay intaanan jaacba ku xigay intaanan u gudbin jamiila buugtan inta hadhay ciddii aan imika lacag haysan waxay kala xidhiidhi karaan dukaanka jamiila ayaa la dhigayaa halkaa ha ka iibsadaan waa ogeysiis kooban oo ah ciddii aan imika jeebka waxba ku sidin waxaan siinayaa jaamac إبراهيم النبات ربنا وحويه خاطر ما أعرف ميل قراب وحكى معسكر كجواري أما وضبط وش هذا لكن هذا ما نطلع كنت كان حيوان ميل أكيد إنه كأحوى بس يعني واحد على هذه ما تبصير فيها فنقدو بعدين قراب نشوف هي مجرنا هاي وعن هاي إنه قراب وش يصير في ثلاث مليون إنه حتى الصورة كلها وكتشوا بوجه معقولة عن هذا الشيء.